kulanti wanaagsan akhyaartana dhegaysatay waa barnaamijkeeni xaash iyo xogta madasha sigistii waxaana maanta barnaamijka martina ugu ah ugaas cabdirashiid xasan aadan oo kamid ah golaha dhaqanka ee maamulka khaatuma state ugaaska oo ku sugan magaalada boocame ee gobolka sool ayaa wuxuu la soo xidhiidhay warbaahinta gaar ahaan madasha xaashi iyo horeyna waxaan weydiiyey ugaaska bal inuu ka hadlo waxa uu markaasi warbaahinta la soo xidhiidhay ugaas cabdirashiid waa salaamaya asad iyo xaashi waa salaamaya waana mahadsantihiin saxaafadan anaa la soo xidhiiray waxaan kaloo salaamaya intay dhegaysanaysa dhammaantiin waynu salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saxaafadda waxaana la soo xidhiiray inaan siiyo xog ku saabsan degmada boocame iyo garawe meel udhexayso bixin la yidhaahdo oo xaaladi ka abuurantay muddo 20 casho ah hadeer ka hor halkaa waxaa laga sameeyey degmada garawe ayaa timi oo kusoo guurtay degmooyinkuna xuduudo ay kala lahaayeen xuduudii degmada boocame ama gobolka sool marka iyo gobolka nugaa la yidhaahdo halkaa waxaa laga dhisay guri waxaa kaloo la cabirsay dhulkii ciidamaa la keenay dadkaasuna waa dad ka tirsan degmada garawe duulnimaad baanu u aragnay degmo kusoo duushay ama gobol kusoo duulay ama reer kusoo duulay haba noqoto xaaladda anagu haddaan deegaanka nahay ama maamulka khaatimo yahay waa laga xumaaday wixii iman karay waa yimaadeen nabad baanu ku raadinay dadkooda muhiimka ama ismahaas ama siyaasiyiin ahaasi baan damaanay inaan la hadallo waana laga qancin waayey arrintaa waxa la yidhi maamul baa meesha degay oo meesha waxa weye maamul baa xukuma cid lagala hadlayaana ma jirto annagu marka go-aan baanu qaadanay wixii inaan nabad raadino oo nabad ku doonno dad nabadeed baanu nahay khaatimo hadday tahay iyo hadday tahay deegaanka iyo hadday tahay isim ahaanba arrintaa qanaceedii waa weynay dad ka tirsan deegaamadan oo maamul ka haya degmada garawe ayaa noo yimi waxayna yidhaahdeen hawsha waa la qabanaya waa la baabiinaya ciidamadana meesha waa laga qaadaya dadka shacabka kusoo yacayna waa laga burburinaya dhulkii annaguna waxaanu nidhi haddaanu nabada helayno balaayo ma rabno dadkii deegaanka kusoo duulay oo cabirtay waa laga celiyey laakiin kantaroolkii iyo gurigii la dhisay baa meeshii ah ciidamaa la keenay maamulkaasu leeyahay waxaa lagu adkaysanayaa maamul baa meesha ka taliya looma yeedhin gobolkii degmadii kale looma yeedhin lagalama tashan hawshaa annagu halkan hadeer hadday khaatimo tahay hadday reerka shacabkiisii tahayba waa ku dhannahay ciidamadii kalena waa nagu dhow yihiin waa la ishor fadhiyaa weli nabadii baanu raadinaynaa nabadaasna waxa weeyaan cid kasta waa u dan weligoodna dadkani xuduudaasay kala lahaayeen oo deris bay ahaayeen oo walaalo ay ahaayeen oo nabad bay ku wada noolaayeen nabadana cid waliba dan bay u ahayd hadeerna waa u dan marka maamulkaas puntland ama degmada garawe ama gobolka nugaal xaaladda waxaa aanu niri ayagu nabadgelyo meesha inoogu dhameeyo oo gobolka kusoo duulay ka celiya oo xuduudaheenii intii dawladihii burburtay dhexe xoog laysuma sheegan oo degmooyin degmo gudaha uma gelin marka haddee weli waanwaantii baanu wadnaa leeyihiin weli waa la qaadayaa weli nabadii baanu ku fadhinaa nimanyo xaaladda halkaa ka taagan waa xaaladda arrinta aan la soo xiriiray midiyaha waxa weeyaan haddii soomaaliyin la yahay ama maamul goboleeda la yahay ama qabiilooyin la yahay xaaladda ergaanu ka nahay oo erga muslim baanu ka nahay oo erga soomaaliyeed baanu ka nahay oo erga qabiil baanu ka nahay hanalaga qaado kantaroolkaa iyo ciidankaa jooga dalka nabadii ha lagu soo celiyo xuduudihii ha lagu kala ekaado haddii la waayo arrintaa soomaaliya markhaati ka ahaada waxa weye halkaa ka yimaada ciddii mas-uuliyadda qaadaysa waxa weye waa ciddii wax dhaqdhaqaajisay arrintaan midiya la soo xiriiray waa intaa
waayo ogaas haddii dhawaan maamulka puntland qaarka madaxdiisa waxay sheegeen gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka inay tahay in laga noqdo go-aanka lagu durkay deegaankaas islamarkaana ciidanka dib loo waxaana la ballan qaaday oo dhanka puntland laga ballan qaaday in la baabi'inayo wixii dhismaha ee deegaanka bixin laga sameeyey arrintaas ma waxaad leedahay weli waxba kama suuroobin weli waxba kama suurtagelin dee haddii arrinta maamulka ay go-aan ka tahay ama madaxweynuhu uu go-aankaas ay daacad ka tahay 20 cashay maraysaa waana la baabi'in lahaa wax shaqo ah oo ka socda meeshaana ma jiraan oo lagu baabi'inayo ciidan amar in la siiyo hadduu amar qaadanayana waa joogaa lamana amrin laba ciidan oo isu muuqdana xaaladoodu dee waxa weeye saacaday doontay qarxi kartaa halkaa waxaanu aragnaa in wax la daahinayo oo nabadgelyo darro laga rabo meesha marka arrintaa madaxweynaha ku dhawaaqay ma fulin waa tahay hadkan adigu waxaad ku sugan tahay boocame meeshii waxay deegaanku aad buu kugu dhow yahay inta badan waa tagtaa hadeerto yaa ku sugan deegaanka bixin la yidhahda hadeer anigu waxaan joogaa bixin meel buuro wadal baan joogaa oo boocame ma joogo buuro wadalka bixin 5 kilomitr mise waa 6 dhinahaasay u jirtaa bixin waxaa jooga ciidamo puntland oo guri u dhisan yahay oo meeshaa degan oo hadeer jooga ciidamada kalena waa ku dhow yihiin buuro wadal bay ka horeeyaan waa laisu muuqdaa waa tay marka meeshii wax laga dhisay ama dhismayaasha laga sameeyey ma laga baabi'iyey mise weli sidoodu ay u dhisan yihiin miyaysa jiraan wax dhismayaal oo cusub oo lagu sii daray wixii hore la taagay meesha horta 2 qol un baa laga dhisay oo iyo kantarool waxaana lagu yiri kasoo baa laga dhigaya laakiin dad badan oo shacab ah markii hore kusoo yaacay oo dhulkii cabirtay oo foostooyin iyo ka taagtaagay wixii aan saarahay oo cabirahay oo shacab ahaa maamulkaasi waa ka baabi'iyey laakiin isagii baa meeshii degan waa tahay dhawaan ugaas cabdillaahi oo isaguna kamid a ugaasyada deegaankan aad kasoo wada jeedaan wuxuu sheegay deegaanku inuu deegaan puntland yahay islamarkaana ay tahay degmada boocame degmo ka tirsan puntland marka waa maxay haddii miyaan la oran karin dadka deegaanka qayb kamid a ayaa aaminsan in meesha deegaan laga sameeyo oo meeshu ay puntland tahay boocame waa la yaqaan degmada boocame meesha ka tirsan tahay waxay ka tirsan tahay gobolka sool bay ka tirsan tahay gobolka midaal kama tirsana shacab ahaanna waa la kala degan yahay oo dadka mulbaante ama inta la degani maamul bay samaystay khaatimo la yidhaahdo oo dadkaas ku aftirsado waxa weeyaan dee qof waa odhan karaa ama laba waa odhan kartaa ama cid gaari waa odhan kartaa meel heblaan ka tirsanayo laakiin codkii dadka maaha waa tahay marka hadeerto meesha idinku waan in badan bay waan socotaa meesha waa la joogaa ciidan baa jooga 2 ciidan baa isku hor fadhiya xiisad baa ka jirta yacni ilaa hadeerto wax la taaban karo oo ballanqaada oo in deegaankaasu ay ka noqonayaan ciidanka puntland iyo gobolka nugaal ee kusoo durkay 20 kilomitr inta ka badan gobolka sool waxaad leedahay ma muuqato marka maxaa idinka idin qorshaysan waa maxay tallaabada ugu dambaysa aad rabtaan inaad arrintaa ku xallisaan hadda ilaa maanta waxbaaba bilbilaamay hadalaa nagu soo dhacdhacaya dad ka yimi xaggaas oo xaggaa ka shaqeeyaana waa jiraayo meesha noogu yimi oo leh khaatuma haddayan meesha ka bixin waanu weeraraynaa oo meesha waa ka saaraynaa guriguna wuxuuba ku xiran yahay in khaatuma meesha ka tagto dadle waa maqlaya ama maamulka ha ahaadeen oo wasiirka ha ahaadeen xaggaa ka yimi ama madaxtooyada dadku agdhowdhow ha ahaadeene arrintii waa la soo dhaaftay waa waanti waxaa la leeyahay haddii khaatuma ayan meesha ka tegin waa weerarayna wax kale oo ka baxsan reer puntland iyo reer khaatumo oo ergadan aad gaadsiiseen tusaale ahaan reer jubbaland oo hadda ka hor arrintaas dhexdhexaad ka noqday door fiicanna ka qaatay dhacdadii ka dhacday mar ay ciidamada puntland sidan oo kale u weerareen deegaanka qorilay dad badan ay ku laayeen waxaa jiray ergo fara badan oo ka timid xagga kelinka shanaad ama soonka ismaamul goboleedka soomaalida ethiopia iyo dhinaca maamulka jubbaland oo dadka markaasi ay ehel ahaan yihiin ma jirtaa wax dad aad kuwaa la xidhiidheen oo aad ka ergeyseen
arrinta gardarrada ah ee dhulka lagu boobay. nadeerow ergadu kolley dee war way hayaan, ama miidii ha ahaato laga wada hadlayo ama dad hadlaya ha ahaatee war way hayaan, laakiin khaas ahaan anigu arrintaa ama cidaan ka war hayaayo la hadashay ma ogi, laakiin haddeeraanu miidiyaha u marinaynaa dadkaas waa dad tol baanu nahay oo ehel siyaasadeed baanu nahay oo meelahan iyadaaba u fara dhuudhuuna hadday Jubbaland tahay iyada lafteeda haddeeraanu marinaynaa miidiya. waxaan leenahay arrintaa waa u furan tahay, waxa ka qabteen intaan dadka shacabka ah ee walaalaha ah ee biyaha iyo deegaanka iyo dalkaba wadaaqa aan colaad la dhex dhigin oo qaab siyaasadeed lagu dhex dhigin haddeer ha soo galeen oo arrintaa haddeer bay u furan tahay miidiyaha. waxaan u marinaynaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe, beryahan waxaa moodaa inuu isagu maaragtay argi kale meelahan ka yahay, waana ku fiican yahay, waa ku mahadsan yahay. marka haddeeraan miidiyaha u marinaynaaye in adeero wax ka qabteen baan leenahay. waa tahay ugaas, ugu dambeyntii barnaamijkeena xaashi iyo xogta madasha sigistii gabagabadii kusii jira, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maamulka Puntland waxaa tiri waxay dhaheen khaatumo haddaysan meesha ka bixin waa weerarayna. waa maxay ciidanka khaatume ee sida gaarka ah targetka ugu ah maamulka Puntland ee ay sheegeen ciidan khaatumo oo si gaara u degan ayaa jooga deegaanka? ciidan khaatumo waa jooga, dadkana waa khaatumo shacab ama ciidan beeleed ha ahaado ama ciidan dawladdu leedahay ha ahaado, labaduba waa joogaan. aad iyo aad ayaad umahadsan tahay ugaas cabdirashiid xasan aadan oo ku sugan deegaanka Borowadal ee gobolka Sool oo khadka madasha sigistii xaashi iyo xogta iigu waramayay. tan iyo intaan isugu imaan doono barnaamijka xaashi iyo xogta waa aniga iyo saaxiibkay Asadna Soodi oo dhanka farsamada kol walba noo qaabilsan oo idile sidaas iyo amaano Allah.